السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتينا يوتيوب كان جانل كوحران باركا 252 iyo page-ka Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali fans subax wanaagsan meel kasta aad joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona wararka suuq iibsiga ugu weyn ee saaka laga qoray. saxiixa Neymar ayaa bartilmaameedka ugu weyn ee kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan ee kooxda doonaysa inay xoojiso kooxdeeda nala soo saxiixato 5 xidig marka la gaaro suuqa xagaaga dambe. Barcelona ayaa si xoogan u geli doonto suuqa xagaaga dambe xilli ciyaareedkan xilli madaxweynaha Barcelona ee Jesus Maria Bartomeu oo ku jira sanadkiisii ugu dambeeyay madaxnimada kooxda waliba doonayo inuu dib u soo sharxo mar kale kadib sanadka 2021. Barcelona ayaa doonaysa in 150 milyan euro kala soo wareegto xidiga kooxda PSG Neymar kaasoo PSG qirtay inay iska fasaxayso xagaaga dambe. kooxda Barcelona ayaa sidoo kale doonaysa saxiixa xidiga weeraryahanka ugu ciyaara kooxda Inter Milan Lautaro Martinez kaasoo haataba heshiiska shakhsiga la gaaray xidiga reer Argentine. kooxda Barcelona sidoo kale ayaa ah xidiga kooxda RB Leipzig ee Timo Werner kaasoo xidig awood badan la soo saxiixato markii la eego in lagu heli karo kaliya 50 milyan oo euro. waxaa intaasi dheer in Barcelona doonayso xidiga daafaca ugu ciyaara marka la eego Gerard Piqué si weynaanayo da'diisa sidoo kale una Samuel Umtiti ku jirin qaab ciyaareed fiican. ugu dambeyntii kooxda Barcelona ayaa sidoo kale doonaysa 2 daafac oo garbaha ka ciyaara iyo 2 xidig khadka dhexe si ugu soo xoojiyaan kooxda xilli ciyaareedka dambe. aragtida waa ka soo dhiibi kartaa Barcelona saxiixda ee sameyn doonto si kula taageero aragtidaada dhanka hoose comment noogu soo dhiibo aragtida waa inuu muhiim maasinidin sida qorxoon aan noo daawateen.